لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. halkan waxaan ugu bishaareynaa walaalaha Soomaaliyeed inuu markii Hidaaya Qur'aan online qaab online ah ku bixin doono waxbarashada diiniga oo uga faa'iideysan doonaan walaalaha Soomaaliyeed. aan ugu bishaareynaa markaa inay ku soo dhawaadaan markiiska oo waxbarashada tayada leh ay ka qayb qaataan. waxbarashadaas oo ka bixi doonta habka online-ka waxaana lagu bari doono dadka waaweyn iyo carruurta labadaba. dadka ku nool Yurub sida dadka jooga Mareykanka, Canada, Sweden dhammaan waxaan ku bari doonaa hab online ah ee uga faa'iideysan doona waxbarashada Qur'aanka Kariimka iyo culumta kale diiniga iyadana soo raacda insha Allah. qofka isagoo jooga xafiiskiisa ama goobtiisa shaqo ama isagoo gurigiisa jooga labadaba waxbarashada uu ka faa'iideysan karaa diiniga waana hab online ayuu ku dhigan doonaa oo si fudud ayuu ku qaadan doonaa isagoo arrinkan ay u sahli doonto markaa online-ka insha Allah uu ka faa'iideysan doono. marka walaalaha waxaan leenahay ku soo dhawaada markiiskuna wuxuu ugu bishaareynaa inuu habka online-ka ku gudbin doono waxbarashada diiniga iyadoo ay imika dad fara badan ay ka dhigtaan habka online-ka uu markiisku dhigo. walaalaha kale imika weli ku soo biirina waxaan leenahay ka soo biira markiiska oo ka faa'iideysta qaabka online-ka uu markiisku wax ku bixinayo. markiisku markaa wuxuu bixiyaa duruus fara badan ay ka mid tahay sida Qur'aanka, xadiista nabiga, siirada, nigaada dhammaan waxaas oo dhan wax ku dhigan doona hab online ah oo Carabida oo qofku in muddo yar oo kooban uu ku noqon doono qof diintii Ilaahay wax badan ka garanaya oo Qur'aanka haday noqoto culumtii kale xadiistii iyo siiradii nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo haday noqoto sida magaranaysa tafsiirka dhammaan culumtaas oo dhan uu ku qaadan doono hab online ah oo ka baran doono isagoo gurigiisa joogo oo aan meel fog iyo meel dheer midna u qaban. waxaan ogsoonahay wadamada reer galbeedka dadka carruur ay degan carruurahooda inay dhigtaan 3 casho waxbarashada islaamiga ha noqoto Qur'aanka iyo culumaha kalebe. marka markiisku wuxuu hayaa waqti inta ka muwasaca oo ka ballaaran oo ah 5 casho oo inuu dhigi doono culumta iyo Qur'aanka labadaba uu dhigi doono oo halka qof kaga faa'iideysan doono ayaynu haynaa. marka walaalaha waxaan leenahay markiiska marka Hidaaya Qur'aan online marka bushaaradaas ayuu nihayaa carruuriinana insha Allah ku soo biiriya oo kaga faa'iideysta idinka iyo wixii kale doonaya inay dhigtaan markiiska. marka waxaan u haynaa habka online-ka Qur'aanka lagu dhigto fudud ee qofku kaga faa'iideysan karo isagoo gurigiisa iyo meelihiisa kale jooga oo ku dhigan karo diintii Ilaahay oo loo fududeeyay oo gurigaaga kugu imanayso oo waqti kaaga baxayn oo xilli badan aad gelinayn kaaga baahan oo duruusta inaad digatay xilliga markaa jadwalka kugu qoran ee lagu siiyay. marka insha Allah walaalaha waxaan u soo gudbinay intaas markiiskuna uu la jeclaaday walaalaha inuu waxbarashada diiniga uga faa'iideeyo cidii jecel ay dhiganaysa.